gelin waxa waaye qandho laakiin qandhadayda mayna gaarsiisnayn 37 iyo digrii iyo 38 iyo 40 bay gaarsiisnayn kor xanuun lafa xanuun kala goysyada aad ay xanuunaaya dhadhankii iyo urtii ayaa iyadana iga dhuntay 3 maalmood oo lasoo dhaafay markasta waa wacaaye وانا لا تشنايو وحيها عافمادك هاسا اهاتي وحي يقول لك ترتد طلده اسيانا الراعايه waxa kale iyadana xusuus mudan intaan xanuunsan 9 maalmood anoo ku jiro gurigayga oo aana banaanka u bixin xanuunkayga bilowdaaniga marka macnaheedu waxa waaye in qoyskayga in gurigaas anoo joogo igu yimid waaye xanuunka marka ilaahi baa maaragtay wax bahaayo laakiin been ma sheegayo la ima test karaynin test la iguma sameynin lamana cadaynin inuu covid-19 yahay laakiin ka markay la hadlo waxay dhahayaan waxa waaye sardhaban Soomaaliga sardhaban lagu dhahaa meel condition waxa Ingiriis lagu dhahaa Soomaali sardhaban lagu dhahaa marka sardhaban aan kale u garanayaa Soomaaliga waa ballaaran yahay waxa laga yaabaa in wax kale u taqaanaya kan sardhaban u aqaana saslaajgeed sardhaban kaasoo ii qabanayay waan iska fiicanahay iska soo kacay qabaysanaay salaadeed waa tukana cunto waxa cuni kara cunaay bad laakiin ilaa hadda aan idin la hadlaayo ur iyo dhadhan labadaba ma lihi wax cuntada waa iska cunayaan laakiin mana isuxmi soo urayaan waxna ma ii dhadhamayaan marka waa amar ilaahay qadartana waan aaminsanahay oo waan maaragtay niyadayada waa ku degan tahay taas horta waa taa laakiin waxaan rabaa inaad kala hadlo waxa waa yaa la dhayalsanin marnaba ha dhayalsanina hadda waa kaas baabku ay xiran yahay kaliya inta qolkan ku jira ilmaha aan dhalay 3 ila nool midna hal qol kuma wada jirno qolkayga jiifka hadana aadana waa ay karigay marka yaa la dhayalsanin waxyaabahan kale aan iska dhaadhicinay dadka muslimka kuma dhacay waxa soo dhamaatay waa ku dhacaa qof walba ku dhacaa muslim ku dhacaa gaal ku dhacaa waxba ku dhacaa diinta rabta aaminsana waxaana waa cudur qof kastoo ku dhacaya laakiin la suroonaado oo la isku xil qofaan laha qofci waa iga yaraada aad iga yaraada qofca marka astaamahayga saas ahaayeen qofka si u qabanaya dadkan ku nool Yurub America iyo Canada iyo meelahaas markay idinka dawladihiina idin ballan qaaday inaad maxay soo kabataan dadka shaqeynaya iyo kuwa shaqeynaya labadaba waxaad ogaataan horta meel walba ku noosho waa carra ilaahay waa ilaahay arladiis ilaahay dhulkiis cirka ka sarreeya waa ilaahay samadiis wax oo hadda weyn maaragtay meel oo alla arladiisa ahayn ma jirto sidaas needin ku degsada tan ugu walwalka badan waxa waaye qofka marka isbitaalka la geeyo aan isbitaal ma geeyna alxamdulillah ma baahanba gurigaaga joogsa ilaahay gurigaaga joog guriga la jooga dad neefta kugu ceshonta bas soo neefna meeyo ilaahay meeyo ceelin alxamdulillah wa fiicana hadda waa soo reysano yaaba xilligan oo kala qandhow badan ay saarnaa jirto hadda ay saarno alxamdulillah marka taas waa taas dadka isbitaalka la geeyo waxyaabaha ugu daran oo ku dhaceeyo waxa waaye cidlo qofkaaga ambulance markii lagu wacmo kula raaci karaba ina ogtiin in kala maqan kula raacay haddii inta isbitaalka lagu geeyo la cadeeyo oo laga helo test lagu sameeyo kasta had testiga way bayareeyeenba test lagu sameeyana macnaheedu waxa waaye absolutamente agtaad qof ma imaanas qofkii marka cidlo iyo argagax ayaa uga sii daraya xanuunka hay okay hadday noqoto oo tii rabbi ku timaado isbitaalka lagu geeyo ma rabana aad ka dhaxay laakiin reality-ga waxa dadkaaga waa la soo wacaa qofkiina waa dhintaa la dhahaa idinkana ma imaan kartiin 14 birna waliba guriga inay ku jirtiin waay maadaama qof oo xanuunka haayo oo xanuunka u dhintay oo guriga idin kula noolaa marka waa cid la ciirsi la'aan dadka badanaa xaalad adag lagu jiraa
waxaan si gaara rabaa inaan uga hadlo oon dul maro maanta maadaama markii ugu horreyso xanuunka masaa uga soo kaca aan hadlaayo ay tahay hadalkina aada ugu dheeraada ma rabo marka waxaan rabaa inaan aada uleed kala hadlo xilligan oo kaleeto xilliyada welwelka badan yahay werwerka ku haynaayo aada u badan yahay xilligan oo kaleeto markaa haddii markii hore adoo caadi ah mental health problem iyo depression iyo anxiety xilligan oo kale anxiety aada u badan yahay because anxiety waa werwer maxaa dhici doona maxaa kugu soo socda werwer taas waxaa looga gudbi karaa inaa isxasiliso isdejiso nafta haddii lasoo doonto meelaa kaga baxsanaysid male laakiin tan ugu muhiimsan waxaa waaye talooyinka la bixinayo inaad raacdo inaa ahaato qof updated ah oo waxa jiroo lagu hadlaayo og meel kasta waa google haddaa furto waxaa ka hor imaanaya fariinta coronavirus waxaa ka hor imaanaya wadaytas carabi ahaa lahe ingiriis ahaa leeda wada alla wada ka joogto adduunkii oo dhan qodka alertoo la siinaa marka wixii xugun ilaahay ah xugun ilaahay waa aad wax ma ka qaban kartid haka adi inaad dadaasho lagugu leeya dadka kalena aadan hasin irsaaqada rabbiyaa bixiyo ilaahay irsaaqada bixiyo dadka wadanka ku nool inan ku dayano ma aha anaga adiga dadkaana aad joogto ama shaqe ama shaqeyn xilligan adag ee lagu jiro waa la kafaalo qaada noloshaada ilaahay ka sukow waa la kafaalo qaada haddaad shaqaynaysana waa lagu kabaaya haddii aadan shaqaynayninna mar walba waxbaa lagu siinayay haddii aad ganacsi iyo kambani iyo shirkad iyo wax laheedna iyadana qaab kale wax lagugu siinaya dadkan UK jooga haddaa si gaara ula hadlo 6 bishan maanta 2 waayo bisha abriil 6deeda laga bilaabo ayaad arki doontaan warqada idin soo dhacaaya halkaasaana laga bilaabaya 6 abriil lagaaga bilaabaya lacagta lagugu caawinayo hal sano camal waa laga qaybinaa marka 12 bilood loo qaybinaa 6 abriil ee sanadkan 2020 ilaa 6 kale abriil ee sanadka 2021 hadda saa u taqaan ayaa loo qaybinaa lacagta lagugu caawiyayo marka irsaaqada ilaahayaa bixi istajiib ragga Soomaaliyeed oo badanaa tagaasida wadaaya oo tagsiga ku cararaya qoysas badanaa arkaayo qayladooda isu yeerayso waxawaaye tagsiga daawada macnaheeda self employed aad tahay qof iskiis u shaqaystaa tahay maadaama aad tahay qof iskiis u shaqaysto macnaheeda waxaa waaye dowladdu way ku kabaysaa self employed kii dadka ahaa ama dadkii iskood u shaqaysanayo waa la kabayaa ayagana laakiin waxaa laga yaabaa sida kuwaan loogu bilaabayo bishaan dhammaadkeeda ama bishaan baageeda inaan loogu bilaabin ayaga oo dib u yaro dhacdaa dhici karta laakiin mar kastoo lagu kabaayo inta baxdo aad xaaskee caruurta xanuun u keeni lahayd qof immune system u leh waxaan ma jirto qof kasta ku dhaca waxaa kuu fiican inaad isbadbaadiso gurigaagana badbaadiso oo joogto gurigaaga iska ilaawa taxi xisna iska ilaawa because taxi is a customer service camal waa adoo qof sida qof dad badan ka dhex shaqeynaa camal ama dadaa qaaday mahana ilmiina huu keenin cudur iyo xaasaskiina cudur huu keenin oday rabta uur iskale oday rabta nuujinayso ilmo yaroo yiciisa dad badan oo ku dhacay dad badanaa dhintay 563 qof aa dhimatay wadankan shala keliya taa hadday gasho waa dhimahee madaxda guriga ku jiro laakiin dadaalaa lagugu leeyahay inaad dadaasho lagugu leeyahay marka taasna waa taa dood baa jirta wadankan laga doodaayo sidii review loogu samayn lahaa dib loo eegi lahaa weegi saddexaad hal weegaa noo dhiman 3 wiiga hore oo la qabtay UK hal weegaa dhiman laakiin uma eka